madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug oo ah madal ka shaqeysa arrimaha nabadeynta iyo isdhexgalka bulshada gobolka Mudug ayaa maanta waxaa lagu wareejiyay 2 gaari oo loogu talagalay inay kaga shaqeeyaan arrimaha nabadda ee ay ka wadaan gobolka Mudug. Munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa lagu wareejiyay 2 gaari oo ay u soo dhiibeen madasha nabadda iyo horumarinta oo ka dhisan dalka Mareykanka. waxaana goobjoog ka ahaa munaasabada 2 gaari ay kula wareegayeen 2 maayir ee magaalada Gaalkacyo. Gudoomiyaha madasha nabadda iyo horumarka oo 2 baabuur ay madashiisu ugu deeqday madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug. ugu horeyntii waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha golaha sare ee madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug, waxayna ka warbixiyeen baabuurtan ay maanta kala wareegayaan walaalahooda madasha nabadda iyo horumarka ee ka dhisan dalka Mareykanka, iyagoona uga mahad celiyay taageerada gaadiid ee ay maanta ugu deeqeen. weyn inoo ah inaan halkaas ugu nimaano dhalinyarada madasha nabadda isdhexgalka xubnaheedu ugu firfircoona iyo gudoomiyaha madasha nabadda iyo horumarinta ee ka dhisan dalka Mareykanka iyo 2 maayir ee magaalada Gaalkacyo inaan halkaas ugu nimaano munaasabad kooban oo aynu halkaan kaga wareegi doono baabuur ay ugu talagaleen madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug si ay hawlahooda shaqo iyo ugu facilitate gareeyaan ay maartay ugu horumariyaan. runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa madasha nabadda iyo horumarinta oo na garab taagnayd ilaa iyo bilowgeena shaqada. waxaan kaga mahad celinaynaa runtii dadaalkaas iyo garab istaagaas la'aantiin waxba ma ahaan runtii ay gaadiid ku wareejinayaan madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug oo dalka gobolka Mudug iyo soomaashooda iyo nabadooda iyo walaaltinimada iyo midnimada ka shaqeysa waqti badan ku soo bixisay. haddana aan jecelnahay inta noloshana insha Allah aan ku bixino. runtii gaadiidkani wuxuu noqon doonaa bulshada gobolka Mudug iyo dadka Soomaaliyeed lagu adeego kana shaqeeya nabadda iyo isku dhawaanshaha loo adeegsado transportation ama dhinaca gaadiidka waxaan ugu bixin jiray qarash fara badan oo aan wax kala horumarin qaban karin. ujeedkan ugu yarnaa wuxuu ahaa 2 gaari oo ugu talagaleen madasha nabadda iyo horumarinta gobolka Mudug iyo USA ay ugu talagaleen inay madasha nabadda isdhexgalka ku wareejiyaan oo ay ku qabtaan hawlaha bulshada lagu adeegayo. aan dhammaan kala wareegno maayiradan ka aadaan meesha waxaa fadhiya gudoomiyihii wakiilka ka ahaa madasha nabadda iyo horumarinta USA uu ka mid yahay lacag 9,000 ay soo aruuriyeen. lacag 9,000 labadaas gaari loo baxshay qiimahooda waa taqaanaa oo suuqa waa ogtiin. caagada biyaha jiimaha lagama galo waxaa loogu talagalay bulshada inay ku adeegto maayirada inay shaqada ay rabaan ay ku qabsadaan oo musawacaan iyo gaariyaashiina u baahanahay. annaguna markaan aragnay wax la cuno inaysan waxba ka shahayn waxaan door bidnay inaan dhaano wixii lagu adeegan lahaa bulshada lagu adeegaya aan waxaas kala baxno. yani madasha waa ku magac bulshada leh oo ku adeegin doonta insha Allah oo idinku madax ugu tihiin. barnaamijkan iyo kulankan intaas ku saabsan yahay. Cabdicasiis Sheekh Maxamed Geedi oo ah gudoomiyaha madasha nabadda iyo horumarka ayaa sheegay inay garab taagan yihiin dhalinyarada ka shaqeysan nabadda iyo horumarinta dalka isla markaana ay ka caawinayaan wixii karaankooda. waxaan runtii rabaa inaan shucuurteeda halkan ka muujiyo sida aan ugu maqsuudka nahay oo aan runtii ugu faraxsannahay shaqada qiimaha badan ee aad bulshada u haysaan. bulshadan dhibaatooyin badan ayaa la soo dirsay 30 sano la soo dhaafay. runtii waxaa tihiin ilayska kaliya ee u soo iftiimay. Soomaalidu waxay tiraahdaa xaaja murugtay xaajadii baa murugtay oo dadkii madaxa isla galeen ur loo bixiyaa la waayay. ninbaa wuxuu yidhi war ciroolahana loogu yeero. wiil yar baa waxaa la yidhi wuxuu yidhi oo geedkii saarnaa war ciroolaha noogu yeerinine dadka cuqaasha noogu yeera. marka garashadu runtii ma aha inta aad khamiiska xiran tahay iyo garka deysatay iyo tusbaxa wadatid. garashadu waa garaad Ilaahay dadka uu siiyay. magaaladan oo culmaa u diin iyo odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin intaba ay u dhan tahay 30 sano la soo dhaafay. waxa u maleynayaa markii labaad aan u dhinacana u soo gudbay. markii horena madasha ay soo gudbisay. haddana waxa weeye kalsooni aan baqabaay waxa weeye meel walba aan tagi karaa magaalada. kalsoonidaasna waxa keenay Ilaahay weynaa ka sokoy waa dhalinyarada
madasha isdhexgalka gobolka mudug fariin baan ka wadaa madasha dibadda especially USA fariintaasna waxa weeye inaan mar walbaba idinla garab taaganahay heel iyo hoo inaan idinku dhiirigelinayno hawsha aad wadaan inaad meesheedii kasii wadaan ugu baaqayaa dhallinyarada inay dadaalkooda sii wadaan oo sidii ay bulshada isku dhexgeliyeen oo ay odayaasha dhaqanka isku dhexgeliyeen nimanka siyaasiyiintana ay isku dhexgeliyaan ugu dambeyntii waxaa munaasabada si wadajir uga hadlay labada maayar ee magaalada Gaalkacyo iyagoona sheegay walaalaheena madasha isdhexgalka dhalinyarada ee waqooyiga Amerika aad ayay ugu mahadsan yihiin inay garab taagan yihiin ayna naga kabayaan wixii aan u baahano waana waxyaalaha la isku leeyahay ee ku horumari karo barnaamijyada noocan oo kale ayaan wadno waana wax walba mar walba muhiim ah in la sakaadsho dal iyo dibadba wixii la isku tari karo qof walbana mas'uuliyadda meesha uu leeyahay uu ka qaato aad bay muhiim u tahay waan mar labaad iyo mar saddexaad ayaan uga mahadcelinaynaa dadaalkooda ay galeen oo ay noo soo gudbiyeen agabkan gaadiidka ah waxaase mar kale usii mahadcelinayaa dhalinyarada garatay in ay ku sameeyaan muhiimad siin sida ay u kala muhiimad leeyihiin qarashka loo keenay ee gartay inay gaadiidka gashadaan abshay oo iyaguna dareenkii nala qaatay oo nala fahmay in loo baahan yahay dadkan in nabadda xaggeeda loo jeeyo waa ku mahadsan yihiin dadaalkooda jaaliyadaha kale oo meel walba joogaan dadka deegaankan u dhashay ayagana sidoo kale aan ka sugaynaa inay dadaalkan mid lamida iyo mid kasii horumarsanba sameeyaan dhalinyaradan isdhexgalka la yiraahdo runtii waa rag soo shaqeeya weye muddo horaa la isla bilaabay oo baasho intaan ay ka cabsi badneed waxaan umaleeyahay 2017 miya meelahaas baan xabadii iyadoo socotaa le warsaan laguma jiri karee weji kale hal raadiyo laakiin nabaddu waxay rabtaa horumar in la sameeyo in maaragtay waxyaaba basic oo aysan ka maarmin baa jirta waxyaaba dadkan isku hayaan baa jirta interest iyo masaaliix iyo ideology intaba waxaa haddaan la dhexgelin oo aan toos loo abaarin halkan laguma sii hayn karo Saadiq Saciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo.